بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لما أمد الصوماليات ميلوا الجوت عالم وحالك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته runtii caawa habeenimo waaye maanta waxaan usana ilaa shalay war aniga aad war nax ayaan maqlay sida awgeeda u soo baxay gabdho walaalahay ku nool Denmark Ingiriiska America North America everywhere oo Soomaali ay joogto gabdhaheedii ayaa mutaqaana isoo wada waceen xanuunkii rooda ayaa mutaqaana ayaa la soo kacay runtii mutaqaana ii sheegay halkaan waxaan rabaa inaan la hadlo marka uu horeyso gabdhaha Soomaaliyeed meel walba ee caalamka ay ka joogaan waxaan ka codsanayaa in loo gurmado walaasheen rooda hadda idinka warramo rooda mataqaana maxkamad ayaa Denmark lagu saaray lix caruura saddex ay waliba aad u yar yihiin waqti hooyo mataqaana saacadii hooyada u bahnaayeen oo abaha u bahnaayeen saddexna ay awan tahay ayaa maxkamadii koowaad iyo maxkamadii labaadba labadaba waxaa la isku raacay habartiin in Soomaaliya loo tarxiilo ilmihiina Denmark mataqaana lagu hayo dad Danish caaw loo hurdana ciyaalkii hawshaas waxay u taashaa mataqaana dawladda Soomaaliyeed ay u taashaa Soomaali meel bay u taashaa maamul goboleedyada ay u taashaa isbishal waxay arintan xoog u taabanaysaa walaalaheena waqooyi ay aad u taabanaysaa rooda waxaan filayaa inay kasoo jeedo magaca waqooyi inay kasoo jeedo aan filayaa laakiin aniga shughul kuma lihi waqooyi xamar shughul kuma lihi waxay u qusaysaa walaashay rooda waay marka waxaan ka rabaa walaalahay waqooyi waxaan ka rabaa Somaliland inaan mataqaana haddii rooda la soo tarxiilay Denmark ay soo tarxiilaysana roodii ubadkeed inaan la kala reebin oo waliba waxaan fariin si qaas ah ugu diraya mataqaana muxuu ahaa ii sheeg dadka maamulkaas jooga in airportkaas aan laga soo dejin rooda iyadoo kaligeedii ah oo xaq waxay u leeyihiin in mataqaana Somaliland ay dhahdo nalooma soo dejin karo iyadoo ubadkeeda aan la soconin waxaan kula rabaa fariintan inaan gaarsiiyo aniga mataqaana Muqdisho airport hadduu koofi ahaan lahaa iyo haddii madaxda qaranka ahaan lahaydba in mataqaana hooyada Soomaaliyeed arrimahan ubad naguma ahan way soo noqnoqdeen laakiin tan waa midii ugu darneed caawa ay maraysa in hooyo mataqaana ilmaheedu oo waliba disability ah horta mataqaana la soo celinayo rooda waa disable waa rooda marka waxaan ka codsanayaa mataqaana dawladda federaalka waxaan ka codsanayaa in mataqaana Muqdisho airportkeeda aan laga soo dejin rooda iyadoo caruurteeda ay soo wadarin arrimaha way lagu soo noqnoqdeen Soomaali waa loo wada dhaarsan yahay kala daadsanaanteen ayaa la rabaa in laga faa'iideysto anaga kala waqooba ah waad arkaysi mataqaana badeena ayaa mataqaana Kenya oo hatta gabdhaheena kali ku filnaayeen oo ay ogtahay mataqaana Soomaali halka aan ka nahay hadii ciidan ahaan leeyahay hadii military aan lahayd inkastoo maanta alxamdulillah wa shukrilah karaamadena dib u soo noqotay waxaan ka codsanayaa Soomaali arinta badda la isku tago way arinta roodana caawa iyada qoyay la isku tagno way hana laga daayo mataqaana ishag Hibeland laga daayo aan ku duulaan tagno magaca Soomaali walaaliya taas ay ka codsanayaa anagu waliba caawa farxadda waa isii dheertahay waan faraxsanahay because wadankeena waxa jooga khayr qaba ayaa jooga ra'iisul wasaarihii Soomaaliya xafidullah ilaahay ha noo dhowro khayr qaba horaa u sheego waxa ku dhahay khayrkiisu waa badan yahay caawa anaga khayra nala joogo oon ogahay inuu arintan wax ka qabanayo maadaama uu caawa anigana baydhabo ku suganahay oo mataqaana ra'iisul wasaaraheena khayrka qabin oo baydhabo nala joogo hadda waxa uu labisnaa inaan mataqaana ra'iisul wasaare khayra aan soo arko kilibkayga midka aan ku xig waxaano khayr la taagan waa insha Allah waxa way marka waxaan rabaa inaan arintan u diyaar garowno inaan cadawga iska qabano waxaan hambali u diraa mataqaana walaalahay galmudug ama meesha ka soo jeedo hore u shoo waxa kule beertay iyo bakartay baa mataqaana hubi ka taala mataqaana guush oo ay ka socoto muxuu ahaa meesha dhuuso mareeb iyo dib u heshiisiinta iyo shirki weynaa oo dib u heshiisiinta ka dhacay hubi aad iyo aad u soo dhaweynaya wixii waa isku dhex darsanaya laakiin mataqaana nolosha dhan waa geeri waa farxad marka galmudugna muxuu ahaa isha waxa leeyahay hambali ayaa leeyahay waxaan rabaa inay arintan is dib noogu soo noqon inay Soomaali garbaha is wada qabsano war badiyana laga qaadanaya war waa hoognay war America ilmo nooma jiro war Ingiriis ilmo nooma jiro waa wareey qaylada waa wareey war hal ka caay Soomaali ay kaca gabdhiyo kaca waxba nooma harin arinta roodaha loo istaago aaway dawladii aaway maamul goboleedyadii aaway war anaga waa la baasaday wiil loo maharsana wiilashii Ingiriiska habeen walba lix wiil ayaa lagu dilaa hooyooyinkii ma dacwoon karaan ilmihi haddii xabsiga la geeyo hataa haddii mataqaana adhana wadankaa dib ugu celinayna waxaa leeyahay mataqaana wadankuu joogaya shalay kuwii daroogada u dhiibaya haddana gel mar labaad u dhiibaya
waa dulmanahay war haddii aan nahay gabdhihii Soomaaliya waa dulmanahay gurmada u baahannahay raad gurmada u baahan tahay annagu waa gurmada u baahannahay war inta annaga isku maqneen ayaa ubadkiina laga baabiyay diin male daryaal male war yaa idinka dib u soo noqda wadanka waa hagaag dawlad caadila ka dhalatay dhibaato ma jirto wallahi billahi xabada ayaa laga qaatay kuwa maanta ku faraxsan inay Ingiriiska joogaan iyo kuwa maanta ku faraxsan inay Denmark ay joogaan wadankiina dib ugu soo noqda lama hura waa cos jiraan amriyaalaha qabsiga wuxuu ahaa الله ودلك نور نبضي الله ودلك نور نبضي سومالي قاعد تهسقوت وبالله التوفيق أرنتها الله يستاق أرنتها الله يستاق والقيل دام ووري